بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلي ساد ميمري شرحتان مادة فيزيكس كيف فصلك سقالات منهج كعسو كسو دواد الداوديال مانتو وحنو مريني جب تركيز دحات إلا مقعب باحي موشن وحنو كمريني عوان كميدة عوان دا موشن مانتو وحنو كقادنينا موشن equations إسلاكتياشا socodka motion equationada motionka qoseeya ayaa maanta falanqeyn doona balse intaan falanqeynin motion equations waxa jirtay ardayad kamid ah ardayda ku xiran channelka soo weydiisay su'aasha oo taa oo yaani su'aasha ka imaaday dhanka iyo cutubka ama cashirkii aan qaadanay isbuucii hore su'aasha oo ahaa sida tan 5/8 ama 5/8 intee ka keentay teacher cashirka kale inoogu soo dar sharaxaadeeda mahadsanid amaal abdiraxmaan adigoo maasan la soco waxaan rajaynayaa inaad fahmi doonto 5/8 halkay ka imaaday iyo sida loo isticmaalo dhageysi wacan waliba daawasho wacan waxaan ognahay kilometer per hour inaan u bedeli karno meter per second مثلا 6 كيلومتر بر اور arabnayna u bedelno meter per second waxaan ognahay halkii kilometer yani in kilometerka arabnayna bedelno maadaama kilometerka oo loo qabiyo hal hour yani kilometer per hour ka dhigato in la mid tahay halkii kilometer inuu la mid yahay 1 meter halkii hour inuu la mid yahay 3600 second يعني هالكي كيلومتر وحلا متهان دهناي كون متر هالكي أورنا وحلا متهان دهناي 3600 سكند أوكي ميدان أو بقول كون أو لوقي ب 3600 يعني ربنا يناسكو بربرينو مركز بربرينو لبدان إبل سلب بحنا وحماش كسهرة التوان لاس دي صدني له إذا طبعا لاس دي صدني له يعني وحنقص مننا simplifying يعني simplicity form كقابك أو فضوت إلى قري كرا تاو نقلنا سلوات من مكان أقيمينه لو markaan u qaybino labada meel waxa soo baxayso qoro ah laba markii loo qaybiyo 5 oo soo markii loo qaybiyo 36 ay soo baxayso 18 taa macnaheedu waxay tahay hadii 60 kilometer uu yahay waxa ku dhufanaysaa simplicity form inta ku dhufan lahayd 1 meter oo loo qaybiyo 3600 second ku dhufo kaliya 5 una qaybi 18 لحدن هدي عشان كل فنا وستة بقول سديد توان مكاوقين approximately وحي إيمانسا لح توان لح متر per second وحنا عن هالكي كيلومتر يا وحلم ده هكون متر هالكي أول محلم ده سدح كوني لح بقول له second كوانا يا وحن قسم من تروين كنا وحن قسم من simplifying تجيب كنا وحن قسم من simplifying يعني واسوق بين إلا لو كسر بحنا وحصهر توان أما لو قيبيي سدني لح كدي waxaan si sameeynay simplifying oo ina soo baxday 5/8 بالعكس hadhow hadii meter per second u bedelayso kilometer per hour waxaan naqanaysaa marka meeshaan hada 5/8 ay ahayd way kala gadismaysaa oo waxay naqanaysaa 18/5 waxaan filayaa inaad fahamtay amaal aadan u maasan tahay dhirgelintada wacan thanks wayahay su'aalaheena iyo cashiradeena aan u sii gudgalno waxaan maanta qaadanaynaa motion of equations and there are 3 equations waxa jira horta 3 equation oo motion ah saddexdoodna insha Allah waa dharan doonaa chapterkan intaan ku guda jirno example-adan insha Allah hadii aan ka gaarno waaka hadii aan ka gaar weyno videoga xiga ayaad ku arki doontaa insha Allah aan isla socono marka there are 3 equations waxa jirta 3 equation oo for motion ah for those who are so moving in a straight line with constant acceleration but karar or constant ku socda these equations that say obtain a relationship yani waxa laga helaa relationship ka dhaxeeya initial velocity ga final velocity ga iyo sidoo kale time taken iyo distance travel by objective كان bilowga كان dhamaadka waqtiga ku qaadatiyo distance ku jar shayga inta ayaan ku helaynaa 3 equation ka laga heli doona yani مثلا first equation لو يقنا و v او تاغن final velocity وحلا متا u plus at او تاغن initial velocity او لو دفتي acceleration او كدعسن time معناها محيتا وا first equation of motion اسلاكتدا equation دا motion ka socodka koowaad second digana waxaan naqan s oo distance ah in la mid tahay ut plus half at square وانا second equation of motion third equation v square waxay la mid tahay u square plus 2as sidoo kale waa third equation
okay first equation ayaan marka hore ku hormareynaa dharaandharinteeda iyo sida loogu soo saaray iyo qaabka ay u imaaday first equation waxaan ognahay inay tahay drive aan rabnaa inaan ku sameeyno u plus at limit okay acceleration waxay la mid ah sidaan ognahay acceleration waxaan hor u soo sheegnay inay tahay change in velocity qaraarku isbedelka keenaanka ku dhaca waqtigiiba ayaa acceleration loo yaqaana so isbedelka keenaanka ku dhaca macnaheedu maxay noqonaysaa finalkii oo laga jaray initialkii waa change yani finalkii oo laga jaray initialkii oo loo qeybiyo timeka ama tida waxaan ognahay in a oo sayyisu 1 uu yahay ama uu qorsan yahay sida awgeed waxaan rabnaa inaan isku dhufano si isweedaar ah si isweedaar markaan isku dhufano 1 markii ku dhacdo v minus u waxa soo baxaysa v minus u halka a iyo t marka isku dhacana at soo baxayso anaga waxa u dan leenahay waa v daas so v daas aan u helno u dan iska wareegaysa oo hadda waxay wadataa minus markay wareegaysana plus ama si kale markii loo dhaho labada dhinac waxa maadaama minus u ay tahay labada dhinac waxa ku daraysaa plus u si plus u iyo minus u isla baxaan so waxa soo baxay marka v equal at oo lagu daray u maadaama balasyadu kala hormarinta xeerkii kala hormarinta aysan saameyn ku lahayn balas iyo ku dhufashadaba laakiin saameyn ay ku leedahay qayb iyo ka jarta maadaama wada balas yihiin at balas ay wadato sidoo kale as well as u na balas wadato waxaan leenahay marka waxaan qori karnaa v in element u plus at waxaan ka soo dharanay qaacidadii acceleration-ka changing velocity-ga oo loo qeybiyo time changing velocity waxay la mid tahay v oo laga jaray u oo loo qeybiyo t si isweedaan isku dhufanay markay inta noo soo baxdana u iska wareejinay ama si kale u dheh minus u maadaama ay tahay plus u dhinac walba ku dar u plus iyo u minus isla baxayaan halkaasna waxa aadaya plus u waa first equation of motion waayahay waa ka oo dharaandharintii aan ku guuleysanay midda labaad sidaan ognahay intaanan u gudbin midda labaad waxaan filayaa in la wada og yahay halka v inay u taagan tahay final velocity of the body u inay u taagan tahay initial velocity of the body a inay u taagan tahay acceleration t dana ay u taagan tahay time oo waqtiga first equation waa halka aan uga baxno second equation of motion drive ama sida aan u dharaandharin lahayn s waxay la mid tahay u plus a half a t square u di waan soo sheegnay initial waa t waa timekii eedan waa accelerationkii s tana waa distance sida ognahay waxa jira qaacida average velocity مثلا average velocity qaacida laba qaacida loo fiiriyaa average velocity macnaha markii celcelis shay la sheegay waa velocity laba shay weeye lan kara ama laba final am initial so markaan raadinayna average kiisa initial kiisa iyo final kiisa oo la isku daray oo loo qeybiyo laba مثلا markii la raadinayo celcelis qofka maadada intuu keenay celceliskiis ahaan saalahan saddex maado galay celcelis ahaan markii la raadinayo maxaa la sameey jiray saddexda maado oo inta uu keeno la isku daray oo loo qeybiyay inta maado uu yahay saddex ah taa oo ka dhiganta average velocity maadaama laba velocity uu yahay oo initial iyo final uu yahay isku darkooda oo loo qeybiyay inta ay yihiin oo laba ah تاو معناه تهاي فاينل كا أو يفيد وتاعن إنيش في عفوا وكله هرمرين كتا بلاس يو أو لو قبي تو هذه مدام حيل كله هرمرين تا قدر وسن سامين كلهن وكله هرمرين كتا as well as distance traveled وحن أقولنا إن لما تا average velocity أو لغرفة time قاعدين هلا وريرين average velocity وحلمت هاد total distance أو لو قبي total time يعني سيس وذا مركز لغرفة distance اللوجو هلا وحلمت average velocity أو لغرفة time labadan qaacido anagoo haysana oo average velocity-gu anagoo haysana iyo v plus u ama si kala diidan u plus v oo loo qeybiyo 2 sidoo kale anagoo haysan distance traveled oo s ah in la mid average velocity-gu oo lagu dhuftay time labada qaacido anagoo haysana ayaan ka duuli doonaa insha Allah ila socod wacan average velocity-ga rabnaa inaan bedelno aan ku bedelno waliba v plus u oo loo qeybiyo 2 booska average aan waxaan dhahnay waxaan ku bedelinaa intaan just aan sameeyna marka s waxay la mid tahay booska average ayaan bedelnay waxaan ku bedelnay u plus ama v plus u oo loo qeybiyo 2 waa halkii oo aan dhahayn average velocity oo lagu dhuftay time oo t ah markay inta marayso
waxaan samaynaynaa haddana v ayaan bedelaynaa v-daas waxaan u bedelaynaa waxaan ognahay in v first equation of motion ee la mid ahay u plus at haddaba v-da waxaan u bedelaynaa u plus at la socod wacan v-da waxaan dhahnay waxaan u bedelaynaa u plus at okay markaan u bedelna maxay noqotay marka u plus at u-doo taalay oo lagu sii daray u plus at waa xeerkii kala horumarintii ku darta saameyn aan ku lahayn markay intaa marayso waxaan u jeednaa halkan u laba u oo yani plus wata inay isku darsamayaan laba u aad joogta meesha oo plus wadata sida awood waa isku darsamayaan waxay noqonayaan 2u plus at oo loo qeybiyo 2 lagu dhuftay t wili t-da kumaanan dhufan gudaha kaliya waxaan wadnaa wili yani dhexda ku jira ama graafkaas ama afwan bracketkaas wax ku jira ayaan shaqeynaynaa marka hadda waxaan ku dhufanaynaa marka t-da ayaan gudaha kusoo furaynaa maxay noqonaysaa marka t-da ku furno ut plus labada t marka isku dhacana waa square oo at oo square marka intaa marayso labadaani kan way u qaybsan tahay sidoo kale asweelaas kan way u qaybsan tahay goona u siina marka mid waliba markii goona u siina yaa isla baxaya marka labadaani waa isla baxaya markay isla baxaan waxay noqon marka ut oo meel barteeda ka soo harayso pure ah at square oo loo qeybi law yani at square oo halfkeeda halfna banaanka hada ugu bixin waxay noqonaysaa marka ut plus half at square ama hadii aan dhahno ut plus at square oo loo qeybi law waa isku mid yani meeshan horgaleed maadaama half uu yahay horgalaha loogu dhigay at square sidaasaan loogu dhigay waxaan filayaa in second equation of motion ay fahanteen waxaan dhahnay marka hore labadan qaacido keenso average velocity oo ahaa initialkiisa iyo finalkiisa soo daro loo qeybi intay yihiin oo laba ah iyo distance traveled oo ahaa average velocity oo lagu dhuftay time then average velocity ku bedel qaacidadii hore kadibna v meesha ku aragtana ku bedel qaacidadii equation 1 ka ku soo qaadanayso v ee la mid tahay u plus at square equations midda saddexaad third equation of motion oo ah v square inay la mid tahay u square plus 2as fastiga waxaan ka soo derive gareynay acceleration ka qaacidadiis secondiga waxaan ka derive gareynay laba qaacido marna average velocity marna distance traveled iyadoo aan isku bedelayn sidoo kale as midkan waxaan ka derive gareynaynaa equationka koowaad anagoo ka soo helayna t iyo equationka labaad t-da aan soo helna aan ku bedelayno booskeeda waxaan dhahan equationka koowaad waxaan ka soo helaynaa t-dii aan soo helnayna equationka saddexaad t-da meesheeda ayaan ku bedelaynayna okay let's go first equation waxaan dhahanay waxaan ka soo saaranaynaa t qaabkay ugu soo saaranaynaa marka u-da iska wareejinaynaa ama si kale haddii aan u dhaho maadaama plus ay wadato labada minus laba u oo minus aa keenaysa oo intana minus u ah dhankaana minus u ah then maxay noqonaysaa marka at meesha ku haraysa oo la mid ah v oo loo tagaayo minus u then anaga waxa u socnaa waa t si aan t u helno labada meel waxaan u qaybinaynaa marka a ayaan u qaybinaynaa labada meel waxaan u qaybinaynaa a labadan a waa isla baxeen maadaama isla baxeen halkaana waxaa ka haraya t pure ka haraysa t oo pure ah so t pure markay harto waxaa meesha ka haraya marka v minus u oo loo qaybiyey eedaas muxuu tahay inta marka waa acceleration so anagoo og marka t inay la mid tahay v minus u oo loo qaybiyey a waxaan ka soo saarnay first equationka imaam marka second equation waxaan ognahay inay la mid tahay u plus half at square waa mid hadda soo daraandharinaynay t maanta waxaan soo helnay v minus u oo loo qaybiyey a booska t ayaa waxaan ku bedelaynaa u minus u v minus u oo loo qaybiyey a meel walba aan t ku aragno ujeedaa t waxaan ku bedelanay v minus u at square waxaan ku bedelanay v minus u then waxaan ognahay marka u-dan inay inta kusoo dhacayso exactly waxay noqonaysaa uv oo laga jaray labada u marka isku dhacaan u square okay markay sidaan ay tahay halkaan aa ujeedid meeshaan yar oo v minus u oo loo qeybi a whole square ah a misalan hadda a square ay noqonaysaa laakiin bartaan markaad u fiiriso v minus u waxay leeg tahay ama u qaab eeg tahay ama ay tahayba special product aan soo arkaynay formanka ahaa oo yani
حسابته دانك حسابته special productive وهي special productive وحن قلنا هي صارها مثلا a minus b whole square وحلا متى a square minus 2ab plus b square so v minus u whole square محلا متى مركب v square أو لقى جري 2uv plus v square يعني a square a ما أنتوا حاولتوا يعني v b نحاولتوا يعني u a square و v square minus 2ab يعني u v هذه أكلا صار مسوا عاي v u هذا ما 2u v أما 2 v u plus b square إنه u و u square وهي هي تاو كذي أنت مكان وأن بدلنا واقع كان هراء square ما دام كان وصهر مرين كرا بلاس وأنت كاني ما دام رير بلاس مال إسلام رسينين v square بلاس u square minus 2u v minus 2u v وسبيشال بروجكتي وماشي عنك قال n وسكوير نوع عادية a سكوير so سيدا أقولنا هاي جودها مركز half a جودها قصور دعان إذا وحلا بحث هل a وهو سيئة half كانوا جودها يقصور دعيا ويا هاي مثلا أنا سمعنا مركز u v minus u سكوير ولو قوي a أو بلاس half كي جودها الوصول فتي لبض n وسلب بحين half كي وحقول دعا مركز لبضان وحقول دعا أو سيئة a 2a نخنيسا بيور 1 waxay ku dhacaysaa kor sidoodan ku soo laabanayaan v square plus u square minus 2uv then waxay noqotay marka fraction hadii mar noqotayna waan ognahay hooseeyaha ayaan yani waxa u raadinaa LCM ka hada waa LCM kan waxayna noqotay waa 2a markaan u qaybino a waa 2 na dhinacan dhan ay ku dhacaysaa ma qaybtan dhan ay ku dhacaysaa 2uv minus 2u square isku leeqaysa so 2a hadii 2a loo qaybin waa 1 markii intaan lagu dhiftan isla intaas ayaa soo laabanaysa v square plus u square minus 2uv okay sidaan u jeedno 2uv oo plus wadata iyo 2uv oo minus wadata waa isla baxayaan meesha waxa ka harayo v square plus u square sida ognahna minus u square iyo plus u square iyaguna waa kala jarmayaan waa la kala jaraa waxay ahayd xeerkii kala hadii kala calaamadihiin kala jar mid weyn calaamadeeda si maadaama 2u ay weyn tahay waa kala jaraa calaamada oo minus ay qaadanaysaa taa oo kale inta vu minus u oo square oo loo qaybiyay 2s so si isweedaan isku dhufana marka 2as waxay la mid tahay v square minus u oo square anaga waxaan u socono waa s meel walba marka maadaama afwan waxaan u socono waa v square so waxaan wareejinaynaa marka u square minus wadata hadii plus u intaan ku darno intaan plus u ku darno plus u minus u isla baxayaan halkan waxa ku haray plus u oo biyura so waxay noqonaysaa marka v square in la mid tahay u square plus 2as waxaan filayaa inaad fahanteen waxaan idin ka rajaynaynaa insha Allah hadii aragtaan inaad nala soo xiriirtaan wixii qalad jira wixii saxsanna aad sheegaysaan hadoo alidmo aad oo maasantiin waxaan idin ka rajaynaynaa dhiirigelin wacan mahadsanidin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته